Asalaamu calaykum. Dhalinyaro badan ayaa rumaysan in waxbarashada iyo lacag samaynta ay yihiin laba arrimood oo aan la isla wadi karin. Waxay aaminsan yihiin in qofka waxbarashada ku jira ay waajib ku tahay inuu sugo ilaa uu ka qalin jebiyo ka hor inta uusan bilaabin lacag samaynta. Fikirkan ayaa sababay in dhalinyaro badan ay dib u dhigaan horumarkooda dhaqaale, ayagoo rumaysan in wakhtiga waxbarashada uu yahay wakhti loogu talagalay keliya in wax la barto. Dhalinyartan waxay isweydiiyaan su'aalo badan sida sideen lacag ku samayn karaa anigoo waxbarasho ku jira? Ma suurtagal baa in qof arday ah uu dakhli joogto ah sameeyo? Haddii aan shaqo bilowdo, ma laga yaabaa tayada waxbarashadeeda inay hoos u dhacdo? Ma khasab baa in qofka hal dhinac oo keliya uu doorto, barashada ama lacag samaynta? Goormaan diiradda saari karaa lacag samaynta? Hadda mise markaan dhammeeyo waxbarashada? Ardayga ma baran karaa xirfado uu lacag ku samayn karo inta uu waxbarashada ku guda jiro? Sideen u maarayn karaa waqtigeyga haddii aan rabo inaan wax barto isla markaasna aan shaqaysto? Haddii aan bilaabo ganacsi yar, ma saameyn doontaa mustaqbalkayga waxbarasho? Runtii su'aalahan waa su'aalo arday walba maskaxdiisa ka dhex guuxayso, isagoo raba inuu ka helo ama in laga siiyo jawaab waafi ah oo ku qanci karo. Dabcan, chanaalkeena waxaa ku xiran arday aad u fara badan oo su'aalahan hore ii weydiiyey, balse ilaa iyo maanta fursad uma helin inaan ugu jawaabo. Maantase anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, waxaan go'aansaday inaan si cad oo faahfaahsan ugu jawaabo su'aalahooda, una iftiimiyo xaqiiqada dhabta ah ee ku saabsan isku wadida waxbarashada iyo lacag samaynta, si ay u helaan faham sax ah oo ka caawin kara dhismaha mustaqbalkooda. Ardayga caqliga badan waa kan fahma in waxbarashada aysan ahayn caqabad ka hortaagan horumarka dhaqaalihiisa, balse ay tahay aalad lagu dhiso mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan. Marka ardayga uu barto sida wakhtigiisa uu maareyn lahaa, sida uu u dejisan lahaa hadafyadiisa, isla markaasna uu ka faa'iidaysto kartidiisa, wuxuu gaari karaa ardaygaas guul waxbarasho iyo guul dhaqaale. Maanta dunida casriga ah waxay bixisaa fursado aad u badan oo ardayga uu ku shaqaysan karo isagoo wax baranaya, sida shaqooyinka internetka lagu shaqaysto, ganacsiyada, iyo maalgashada yaryar ama adeegyo ku salaysan xirfadaha ardayga uu leeyahay. Arrimahaas oo dhan ma carqaladeeya waxbarashada haddii si nidaamsan loo maareeyo, balse waxay kordhiyaan waaya-aragnimada ardayga iyo kalsoonida uu nafsadiisa ku qabo. Sidaas darteed, fikradda ah waxbarashada iyo lacag samaynta inaan hal mar la isla wadi karin waa fikrad qaldan. Xaqiiqdu waxay tahay in labaduba ay is-dhammaystiraan, qof walbana uu ka faa'iidaysan karo inta uu ardayga yahay, si uu u dhisto nolol dhaqaale oo aad u wanaagsan iyo mustaqbal ifaya. Ardayga waajibkuma ahan inuu sugo ilaa uu jaamacadda ka qalin jebiyo si uu u bilaabo dhaqaale samaynta, sababtoo ah waxaa jirta fursado badan oo ay ardayda ka faa'iidaysan karaan, lacagna ku samayn karaan inta ay ardayda yihiin. Ardayda maanta jooga waxay haystaan fursado ka badan ardaydii jiilashii hore, sababtoo ah ardayda maanta joogta aqoonta yar ay bartaan waxay u bedeli karaan fursado dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii ardayga uu barto xirfado ay ka mid yihiin turjumada luqadaha kala duwan, xalinta xisaabaadka, qorista maqaalada dhaadheer, iyo soo koobista buugaagta, wuxuu ka abuuri karaa dakhli wanaagsan. Wuxuuna aqoontaas ugu faa'iidaysan karaa inuu u diyaariyo koorsooyin waxbarasho ardayda kale ee u baahan, ama inuu adeeg waxbarasho ka bixiyo barta internetka ee ay isugu yimaadaan ardayda raadinaya gargaar waxbarasho, kuwaasoo diyaar u ah inay lacag ku bixiyaan caawinaad ay helayaan. Internetka waa fursadda ugu weyn ee ardayga uu lacag ku samayn karo, isagoo waqti badan aan ka khasaarin. Sidoo kale, ardayga barta content creation, graphic design, ama video editing wuxuu haystaa fursad aad u ballaaran uu kaga faa'iidaysan karo xirfadiisa. Qofka barta content creation wuxuu abuuri karaa muuqaal waxbarasho, wacyigelin, ama madadaalo uu ku baahiyo baraha bulshada sida YouTube-ka, TikTok-ka, ama Facebook-ga, taasoo u sahlaysa inuu ka helo dakhli wanaagsan. Ardayga yaqaana graphic design wuxuu u shaqayn karaa ganacsiyada yaryar, shirkadaha, ama shakhsiyaadka u baahan logo, boorar xayeysiin, naqshad baraha bulshada ah, iyo buugaagta u baahan naqshadeynta. Shaqooyinkan badankood waxaa lagu qabtaa si online ah, taasoo ka dhigaysa mid waqti yar iyo meel kasta lagu qaban karo, iyadoo laga helayo macaash aad u fiican. Sidoo kale, ardayga barta video editing wuxuu tafatiri karaa muuqaalada YouTuberska iyo muuqaalada xayeysiinta shirkadaha loogu sameeyo, isagoo ka helayo dakhli aad u fiican. Xirfadahan waa kuwa si xawli leh u karaya, aadna loogu baahan yahay dunida maanta. Waxaad ogaataa, arday kasta oo si wanaagsan u barta xirfadahan dijitaalka ah wuxuu isku wadi karaa waxbarashada iyo lacag samaynta, haddii uu si xikmad leh u maareeyo waqtigiisa, uuna si joogta u horumariyo aqoontiisa. Markaana waxaan soo qaadanaynaa qodobo muhiim ah oo ardayda ka saacidi kara inay dhaqaalo sameeyaan. Qodobka koowaad, maskaxda dhaqaale ee ardayga. Lacag samaynta kama bilaabato jeebka, ee waxay ka bilaabataa maskaxda.
ardayga aaminsan markuu waxbarashada dhammeeyo kadib inuu dhaqaale samayn karo wuxuu sheegaa fursad aad u badan. Tusaale, ardayga barta IT-ga haddii uu aaminsan yahay inuu sugo inta uu shahaadada ka qaadanayo si uu dhaqaale u sameeyo wuxuu lumin doonaa sannado aad u badan. Balse haddii uu isla maanta bilaabo barashada xirfado yaryar sida websaytyada loo sameeyo wuxuu ka heli karaa dakhli yar isagoo wax baranayo. Qodobka labaad, maareynta wakhtiga. Wakhtiga waa hantida ugu qaalisan ee ardayga. Ardayga haddii uu rabo inuu lacag u sameeyo isagoo waxbarashada ku guda jira waxaa muhiim ah inuu samaysto jadwal uu ku maamulo wakhtigiisa, sida wakhtiga cibaadada, wakhtiga waxbarashada, wakhtiga shaqada iyo wakhtiga nasashada. Micnaha isticmaal kalendar ama buug yar oo aad jadwalkaaga ku qorato. U kala hormari howlahaaga sida ay u kala muhiimsan yihiin. Ka fogow waxyaabaha wakhtiga kaa lumin kara. Tusaale, ardayga haysta 6 saacadood fasax isbuucii haddii uu 2 saac u qorsheeyo dakhli samaynta wuxuu bishii heli karaa dakhli uu isaga bixin karo kharashaadka waxbarashadiisa. Qodobka saddexaad, u beddel aqoontaada lacag. Wax kasta oo aad barato waa hanti. Su'aasha muhiimka ayaa ah sidee ayaan u iibin karaa aqoontayda? Aqoonta waxbarasho waxay u dhigantaa adeeg lacageed. Tusaale, haddii aad xisaabaad ku fiican tahay waxaad noqon kartaa macallin gaar ah oo dadka bara xisaabta. Micnaha waxaad noqon kartaa home teaching. Haddii aad ku fiican tahay luqadda Ingiliishka iyo luqadda Carabiga waxaad noqon kartaa qof luqadaha dadka u tarjuma ama waxaad bixin kartaa koorsooyin online ah oo dadka ku barayso luqadaha. Haddii aad ku wanaagsan tahay kombiyuutarka waxaad noqon kartaa macallin ardayga bara sida loo isticmaalo kombiyuutarada ama waxaad ku shaqaysan kartaa hagaajinta kombiyuutarada software ahaan iyo hardware ahaan. Qodobka afraad, shaqooyinka online-ka lagu shaqaysto. Internetka wuxuu leeyahay suuq aad u ballaaran. Qof walba xirfad lehna uu ku shaqaysan karo. Qaar ka mid ah shaqooyinka online-ka lagu shaqaysto haddaan soo qaato waxaa ka mid ah inaad samaysato website kadibna aad ku soo bandhigto qoraallo xiiso leh dadka markay akhristaana waxaad ka samayn kartaa lacago aad u badan. Kaliya waxaa muhiim inaad hesho macaamiil akhrista website-kaaga. Tusaale ahaan, ardayga barta sida loo qoro sheekooyinka dhiirigelinta leh wuxuu ku shaqaysan karaa inuu furto channel YouTube ah ama page Facebook ah. Kadibna sheekooyinkaas wuxuu ka samayn karaa muuqaallo cajiib ah isla markaasna wuxuu soo gudbin karaa asxaabtiisa channelka. Halkaas wuxuu ka samayn karaa dakhli aad u wanaagsan. Qodobka shanaad, ganacsi yar oo uu ardayga bilaabi karo. Ganacsiga yar uma baahno maalgelin aad u weyn. Ardayga wuxuu samaysan karaa meel yar oo daabacad ah oo u dhow iskuulka ama jaamacadda wax ka barto wuxuuna ka samayn karaa dakhli macquul ah. Qodobka lixaad, maalgashi aqooneed. Xirfad aad baratay maanta waxay kuu keeni kartaa dakhli sannado badan aad helayso. Ardayga haddii uu barto xirfadaha sida digital marketing, e-commerce wuxuu mustaqbalka ka samayn karaa dakhli aad u badan. Qodobka toddobaad, kayd iyo maamulada lacagta. Markaad lacag samayso waxaa muhiim ah inaad lacagtaada aad si wanaagsan u maamusho waxna aad ka kaydsato. Micnaha qaarna aad u isticmaasho nolol maalmeedkaaga qaarka kalena kayd aad ka dhigato si aad biri u maalgashato ama aad ugu badbaado waxyaabaha lama filaanka ah ee ku soo wajihi karaa. Tusaale, shakhsiga kaydsada 10% dakhligiisa bil walba wuxuu sannado gudahood ku noqon karaa shakhsi dhaqaale ahaan xur ah. Qodobka sagaalaad, qaladaadka laga fogaado. Waxaa jira qaladaad la rabo inaad ka fogaato waxaana ka mid ah deynta aan qorshaysanayn. Ka fogow deynta aan qorshaha lahayn sababtoo ah waxay ku horseedaysaa faqri aan dhammaad lahayn. Iska ilaali ganacsiyada sida degdeg ah lagu bilaabo sababtoo ah waxay leeyihiin khasaarooyin aad u badan. Ka taxadar inaad dayacdo waxbarashadaada sababtoo ah aqoonta waa shay qaali ah. Markana waxaan isla soo gaarnay gabagabadii mawduuceena maanta. Lacag samaynta intaad waxbarashada ku jirto ma ahan wax adag balse waxay u baahan tahay maskax furan, qorshe iyo dadaal joogto ah. Ardayga maanta bilaaba dhaqaale samaynta wuxuu beri noqon doonaa qof leh waayo-aragnimo, xirfad iyo xorriyad dhaqaale. Waxbarasho lagu daray dakhli waxaa ka dhasha mustaqbal guul leh. Insha Allahu tacaala dhammaanteen waxaan idin rajaynayaa mustaqbal guul leh. Intay mawduucana kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.